markaan muxuu ahay waa kama dambayse balaan mar kale haddana odayaasha ka codsan inay bilow barako noo bilaabaan waxaa la yidhi wareer magaalo warqadu ku yaal fikirka iyo ra'yiga aan qabno aniga idiin og intaan dhaana yaaran madaxa ku haysanina warqad intaan ku qorno aan miiska saarno dadka Soomaaliyeed ha ogaadeen hana arkeen oo hanagula xisaabtameen wixii aad noo sheegteen oo dhahdeen waxaasaan samaynaynaa waa kuwan waxa aad samaynaysaanna way ka duwan yihiin in la yidhaahaan oo nala xisaabtamo oo nala qabto markaan waddada ka leexan oo aanan annaga idiin og intaan idin dhahno maalinna waa inta aanan dhihin waxaan samaynay dukumenti la yidhaahdo aasaaska ama maxaan ku raadayay guddiga bilowga cusub ee Soomaaliya dokumentigaasi wuxuu ka koobmaa dood dheer iyo maxaan ku raadayay daraasad badan iyo wadatasho badan ka bacdi mushkiladaha Soomaaliya ay qabtay haddii hal la iskareey la yiraahdo lama soo koobi karo lamana dhamayn karo aad iyo aad ay u badan yihiin war kuwee daran maxaa ay sheekadii ahayday falaarta isha ku taala iyo mid salka ku taala teen ka gooyaa bal aan fariistay muxuu ahay mid salka xikaayadaas waa xikmad yani weyn waxaan ka fiirnay marka qadaayaadka ama issueska ah falaarta salka ku taala oo inaan fariisano noo ogolaanayo lixda tiir siyaasadda ku salaysan lixda tiir ee dokumentigaas bilowga cusub oo u bixinay the foundations of new beginning afka qaraad ugu yiraaha sameeyay lixdaasi waxay xigmadda ay salka ku hayaan waxay tahay mashaakilaadkii markii la fiiriyay qaarna waa marka aad xalliso mushkilad ayada ka xallisantay qaarna waxa waaye marka aad xalliso mushkilada badan oo kala daba yiilay ka xallinaysaa koow waxaan dhahnay mushkiladda asaasiga ee ugu weyn ee Soomaaliya maanta in wax laga bilaabo u baahan waa amniga markii aan helno qofka Soomaaliga ay caawa asigoo aan cabsanayn inuu sariirtiisa seexan karo marka amni inaan helnahay waxay ahayd koow waxaan dareennay amni haddii uu ilaa xaddi suurtagal ah la helo wax badan oo kale nolosha fududayn lahay oo nolosha muxuu adduunyada iyo aakhirada fududayn lahaa inay suurtagal yihiin amniga sidaasaan koow uga dhigno amniga marka waxaa jirta xikmad dhahaysa amniga haddii aanu lahayn sharci rule of law يعني هذا قصة لسنين شرعي أو ليرادو وأمني كذي وحو أساسي هاي بالله أما سماي سنكا ديكتاتورية ده أمني جو بلغ دعاء قرطة ليقول واحد هل حرق إذا عبد سالت الألباب ده للصار وحول بقى لا ضمر بتوع أمني وحال يراوا أساس ديكتاتورية مركا عامل شرعي مركا عاد شرعي كذي أدهيسه وانت يالو لكن امني انو جيرنا هو اساسي بلوغ فوضى iyo anarkiga iyo maxaa ahaa meesha ka dhigay marka labadu kala ma socon karaan waa inay socdaan xanan marka qodobka lagu xijinaya amniga kulli faaqan aan ka hari karin waxa waaye maxaa ahaa sharciga iyo nidaamka iyo garsoorka iyo cadaaladda ummadda u dhaxaysa in la helo aad baan waad maqasheen Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay xal mariyay riijiyo aan qurux badnayn Soomaaliya waa dalka burcadbadeed biyihiisa aan la mari karin Soomaaliya waa dalka la xirada qaxootiga adduunka ugu weyn Soomaaliya waa dadka muxuu ahaa argagixisada dhoofiyo oo adduunyada dhan ay ka baqayso London markii Olympic Games la dhigay maxaa ka socday warnaga ilaaliyo muxuu ahaa waxa laga yaabaa inay meeshii ka yimaadaan Soomaaliya يعني intaasi in la maro dabcan dadkeen iyo dalkeenuba ma mudna muxuu ahaa waxyaabahaas wax badan oo kamid ana sax ma aha يعني waa dalka adduunka ugu musuqmaasuq badan marka Transparency International ay tiraahdo dada argument jiri karta maxaa lagu sameeyay macaayirtii mitiradii lagu cabiray in musuqmaasuq leena waa maxay ila institutionski oo waxa lagu cabirayba ma qabno ma yaalaan be annagu marka doodaas maxaan ku yiraahdaa inaan galnahay macna badan oo ma sameeyeen waxaan dhahnay reasonska
aan muujino aan ka shaqayno dalkaani iyo ummadaani dad ida iyo dhaqan ula musuqmaasuqa inaanay ahayn oo tuugada iyo sida xun loo isticmaalo xafiiska dawladda iyo musuqmaasuqa ma lacagta oo la xada kaliya xafiiska dawladda iyo awoodda dawladda si xun loo isticmaalo sideed waxay ka mid tahay corruption marka qodobka saddexaad waxaan dhahnay dib u qaabeynta hay'adaha maamulka maaliyadda dawladda public finance management ama public finance institutions aan muxuu ahaa dib loo saddexdaas hadii la isku daro ay meel fariistaan waxa la armaa dawladnimada Soomaaliyeed bilowgeedii la hayaa oo waxa kale ay yihiin ku sii duldhis waxaas lacagta yar ummadda la helo hadii la helo sidii intii ummadda u gooyin karto u gaari karto loogu qabto amni ay muxuu ahaa cawada ku seexata ay hesho garsoor hadii maxaan ku raada ilaa bini aadana waa la macaamilaya waana la isqabanaya hadii la macaamilo la isqabto meel la aado oo lagu kalsoon yahay oo aan aadayo garsoorka maxkamadda anoo ku kalsoon inaan cadaalad ka soo helin laakiin anoo og inaan cadaalad ka soo helin waxa ka imaanaysa inaan marka iraado meeshaan cadaalad taalo qorigayga ka ah yaa